طبعا waxaan u mahadnaqayaa dadkii sida xilkasnimada iyo kalsoonida ugu soo abaabulay xafladda tan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu jeclay inaan dad badan kaga soo qayb galo duruufo badan awgood adigu dadkeena baaqday way jiraan intaa markaan kaga gudbo waxaan fikirkayga ka dhiibanayaa taageerada aanu hayo هيلي هو ماملكا كل كشناد اسمه يسا كقيب قادشيسا أيام وحنا روكو هذا يا أفكار قاتمة استيد في صوماليا وحنا دي سوق بينيا إن أنا دمان تهي كم دي سنة هاي وأنا كوبا قيب سنين إن يرو فرق في الصوت يعني عندنا وشقين ويا أنت ذكر إن أنا كم دي سنة هاي تاجريس قدر كلامات أنت وجد بيو كهذا كبس هذا مصود ياسن أدرون بورجرام خليه قدري نكوي عن دافو واحد واحد عملها قدر كلامات شريتو يمانتا وكلامه واحد تأكل كشنا مي يكون أصلا كده ما نكرها يأكل كشنا تبصون مرة markii hore waan mari jiray waan joogi jiray waxaan la yaabanahay oo aad iyo aad la yaabanahay fikirka dadka qaba hadda diidan waxa meesha ka socda hadda markaad tagto waxaad soo xusuusanaysaa nolol iyo waxqabad tusaale u soo qaadanaya magaalada anu waan ku dhashay wax kale iska daayo waxaan tegay iyadoo laga dhisayo maxad diini ah كده عليك بشيء كله وحنا بنكون بورينيا إلى عشان يتوقع تلفوني وحنا سوق الجاري وحنا بنكون بورينيا هلا تاجر وحي وعن الغبن والنسيب دره إن لقى سورتشيس تهدي وحو عن الغبن وأنا واحد ما أنت سوالك الله لقي waxaan leeyahay hala taageero waxa uu caan la qabanayo hadii wax khaldan yihiin tusaalaha laga bixiyo laakiin waxa uu caan la qabtay in la burburiyo ama dhibaato loo keeno war qofka waxba tarayno wax dhibaato u geysay hadda waa saas oo anaguna maanta shalay waxba idin kamaan sugay laakiin maanta aanu hilid ka sugayn هذا هو اللي قشيقي يوحي لقرية وقرب waxaan leeyahay meesha iyada ay kilkaas maanta cayisii isu taagay in yar baa u dhiman waxa yar ee la diiday yeela dadka qaar ka silugsan yihiin aniga xoog isuma ka qarsoona dadooda soo helay waa iska warqabnaa ilaa shalaytu magaalada arrimo kale ka socday markaba inaan farageliyo fakarka waa la isku diidaa laakiin isku waxa wacan in la isu soo dhaweeyo wixii si diidan yahay oo waxa dhiman la dhameystiro oo dadka taageersan kilka ee uu dagaalamaya inuu wax noqdo iyo kuwa fakarka kala qaba waa dad wada dhasho ehel ah in si naseex loo wada fiican fakarka hal raadiyo waxaan leeyahay guul iyo gobonimada rijeena anaguna way garab taagan waxa uu diyaa idinkana waxba la isku sugnaa salaam calaykum عزيز رالي هو بعد ما تبعي أموري
وبعيد الدولة هي بس أنا بلعب الدولة قبل ما أوصل قبل بلعب البعيد غير ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاحتفال الناس فضلاء الجالية الدولية الشمالية إثيوبيا عزاك أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنكون دوين من أنا بكمل ورحمة الله عبد الله يوسف ورد. السلام عليكم. sida application waxa weeye Cabdullaahi Yuusuf waxaan tiga ama haweenaya marka dhammaantiin jaaliyadalka joogta Albert mataqaanaa Canada ee ka soo jeeda dowladda Soomaaliya Itoobiya aad iyo aad ayaan salaameynaa waxaan u abaray mataqaanaa hawshan ay iskood iyo mataqaanaa iyagoon cidna mataqaanaa ay la qabanin ay qalaqaabiyeen ay mataqaanaa taageerayaan مثلا حولها حصل ديانك ورمك المسلمين إمام السلطان حصل ديان كله مثلا لما تينا يبان يجي سلامية إذا كذب عن كلامها لما صح بالرياضة إلى ذيك الإنسان عن كسر مثلا مدحنا من ديان سوالف من ديان محمد الله سؤاليا لو دقيقة ضد كذب network specialist عابدي حكيم عبد القادر ayaan ku soo dhaweynayaa oo bal warbixin yar oo kooban labada daqiiqo siiya isagoo hadda ka yimid wadankii marka dhammaantiin waan salaamayaa madaxweynaha mataqaanaa lambarka isaga soo sidin soo geli doona haddii la yidhahdo waxya kadib marka dulqaad bartamana haddii la yidhahdo waxaan leeyahay mataqaanaa aad iyo aad umahadsantiin mar labaad la isu sheega anna dani oo la fatahay qaban sabiyo nafru ay waana 77 wasdawliyo waana ha inta nin walba wadankiisa waxa baahan inaan qoriga qaato ay kubto waan ka go'an yarkii waa Africa mar walba waxaa jiraya communication problem yar baa jira cabdi xakiin warbixintaadii guud iyo sidii aad u soo jeedisay iyo dhammaan baahiyaha aad ka hadashay waa mahadsan tahay shirka waxaa jooga dad badan oo kale ayaa iyaguna waxaan jeclahay inaad adna si kooban nagu soo koobto aydiid baana kaa horreeyey markaa soo koob haddii allaha wadri waxaan aad maanta ugu faraxsanahay in jaaliyadda Canada gaar ahaan Alberta in barnaamijka aad samayseen aad u samayseen dowladdeegaankiina Soomaalida Itoobiya arrintaas aad iyo aad ayaanu idinku hambalyeelaynaa midda labaad anoo ku hadlayo magaca xafiiska qurbajoogta magaca dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan idiin sheegayaa maanta in aad nasiib u yeelateen in aanu idiin samayno in shirka ay kala soo qayb galaan madaxda ugu sarreysa ee dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ee ay ka mid yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taas nasiib ayaad u yeelateen jaaliyadaha kale ayaad ka nasiib badantihiin kan kale waxaan idiin sheegayaa hooye hadday tahay dibadda hadday tahay gudaha la socotaan wadanka nabadgelyada iyo horumar ka socota arrintaas madaxweyne ku-xigeenka ayaan ku wareejin doonaa oo aan inta madaxweynuhu idinka soo geliyo isla hadli doona marka anigu waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
madaxweyne ku-xigeenkii baan idinku wareejinayaa. السلام عليكم. هذه منطقة منطقة شيء عشان الطلبات منطقة معي أمامنا سميتين تغيير منطقة معي كورمال سردان فينا منطقة معي أنك أخذ وكان معي تسوسا منطقة عن التركي من جانب التركي marka xaaladda nabadgelyada deegaanka aad iyo aad ay mataqaanay boqolkiiba budumeeye wax mataqaanay caqabada ama caqabad nabadiid oo mataqaanay ka jiro waxaa tusaale usoo qaadan kartaa mataqaanay dadkii eega mataqaanaa ugu dambeysay ee dhacda ay ahayd aygar yimaadeen qoomiyadii mataqaanay ethiopia oo dhan iyo madaxdiisa bay ugu sarreysay iyo mataqaanay madax ka socota iyo eedooyinka oo mataqaanaa wadamada kale ee dalkana ee afrika afrika marka xaaladda guud ee nabadgelyadu taas weeye horumarka mataqaanaa kolley e s t kala socotaan aad iyo aad mataqaanaa yay xukuumadda iyo shacabku waa isku duwan ay mataqaanaa ay ugu shaqeynayaan mataqaanaa dalkooda marka idinkuna waxaad qayb ka tihiin horumarka socda iyo nabadgelyadaba sababta waxaad halkaa ka taageeraysaa idinka mataqaanaa xilligaas aynu mataqaanaa camal kala duwanahay wadanna mataqaanaa aad u kala fognahay horumarka iyo nabadgelyada dadkeeda taageeraysan marka mudajoogta deegaanka u badatay meel kastaas intee aad iyo aad ayay mataqaanaa uga qayb qaadanaysaa horumarka idinku laakiin waxa weeye waxaa deerkii dabajoogta waa la suumaan oo kale laakiin idinkana waa nisooman dowladnimada waxay u kaaliya afaqada habka idinkaadiye marka mawlidkan waqtigu u gaaban yahay waxa weeye madaxweynuhu waqti ma hayo aad ah xilimaha gaadiyay mataqaana waa bashanta dadayna tobanka daqiiqo ugu badnaan wixii su-aaleed qabtaan aniga mataqaana isoo weydiin doontaa haddii la yidhaahdo isoo muqadku toos idiga soo gelaya waana ka baxay isaga ka midna haddii la yidhahdo su-aalahana mataqaana anaad isoo weydiin doontaan isaga waqti badan ma hayo isaga ma hayo waqti badan marka anaad soo weydiin doonaa haddii la yidhahdo marka anay soo mid madaxweynihii ma cidda golaanka waa cabdullaahi madaxweyne ku-xigeenkiina iyo cidda inaad leedahay isaga isoo gelaya waan ka dhacaya qarka hadda soo gelaya marka jaaliyadii si weyn ayay kuu maqashaa waxayna aada ugu faraxsan tahay inaad la hadashid waxaanuna kugu soo dhaweyneynaa inaad nagala qayb qaadato shirka si gacmo furana kuna soo dhawow jaalabada si fiican baa lagu maqlaa si fiican aad iyo aad baan umahadsantay buri dadka hore waxaan salaamayaa dhammaan jaaliyadda ku jirta shirka magaalada edmonton waxaana idinku salaamayaa salaamada islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu inta haddaad isi gud marka hore waxaan aada ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo shirka si teleefon ah waxaana rajeynayaa inuu noqdo shirkii ay ka soo baxaan midho ladacbo oo nabadgelyo iyo horumar iyo maamul suqob ah oo isbedel ku keena waxa weeyaan dhibaatada deegaankeena muddada ka jirtay iyo gaar ahaanba waxa weeyaan dib la soo wada deegaanka ee waddanka aad ku nooshihiin kii ka qabtay inuu noqdo shir waxa weeyaan hadda kabacdi wuxuu shirka ka dambeeya in haba yaraatee wax dhibaato ah inuuna deegaanka kaga imaanayo wadamada ku nooshihiin ayaan rajeynayaa in ilaahay ka dhigo shirkan intaas haddaan kasii gudbo waxaad soo tihiin deegaankeena dadka ku nool shacabka ku nool dhibaato fara badan basoom oo aada iyo aada fara badan dhanka waxa weeyaan horumarka ah horumar la-aan ba-an oo ka jirtay waxa weeyaan
runtii dadka halkaasi waa dad badan oo waxa weeyaan wax kala garanayo aada u fahamsan weeyaan dadka jira deegaankeena lixdankii laga soo bilaabo lixdameydii ilaa iyo waxa weeyaan seventy ilaa iyo waqti dhow wada soo jiidiko waxa weeyaan waxaa jiray dad markaa markasta lagu shaqaysanayo deegaanka u sheeganaya inay deegaanka u dhasheen laakiin waxa halgelinka lagu magacdala cashiga ay ku jiraan oo markasta cidda kuu kasaarta ama ku dhibata ay noqoto dadka deegaanka soomaalida waxaa la soo diyin haddaa hal tusaale soo siiyo xilligii dhargii dagaalkii dhacay markii waxa weeyaan dowladdii dhulballaarsiga hayadka soomaaliya markaa ay weerar kusoo qaaday etoobiya waxaa la soo diiyey dadka deegaanka dad deegaanka u dhashayba waxaa lagu laayay jaasho soo haydeen etoobiya jaasho soo haydeen ee lagu laayay oo lagu xasuuqay oo lagu laayay darbigu markuu sii baxayena marka tusaalahaan qabdaha laga qabta darbiga uu dhagaxbuur kasii baxayo wuxuu sii laynay ilaa jijigi iyo waxa weeyaan ilaa xaalo iyo dadkii faraha badan ee lagu laayay ilaa waxa weeyaan kulli gureed iyo dhammaan waxaa la soo diin markuu kasii baxayo magaalada dowladkood darbigu sii xasuuqayay kana waa soomaali kana waa soomaalida kuwa soomaalida yimidna waxay dadka ku xasuuqayeen axmaara u shaqaynayseen waa laba qodob kadib markii ka baxay timida waxa weeyaan dowladdii dhulballaarsiga ahayd waxa weeyaan gardarada ku socotay ay ka baxaysay wadanka deegaankeena soomaalida gaar ahaan kasii baxaysana dadkii deegaanka u dhasheen markii sii xasuuqaysay markii sii baxaysay way sii xasuuqaysay oo waxay dhahay waxa weeyaan sababta laga guulaystay dad deegaanka u dhashay waa la shaqaynaya axmaarada marka haddaan ka baxay deegaanka waa inaan sii laaya askartii soomaalida udalkeedii way xasuuqay markaa way laysay walow ay ku jiraan kuwa xasuuqaya kuwa dhownaayeen oo ay ahayn askar soomaaliya qabiilka iyo cid kale ay ahayn kuwa laynayima askar soomaaliya oo waxa weye deegaanka inuu dhalatay dadka xagtiya ku jirta waa lalaayay oo boloska ahayd or haddaana qabiil aana cid waxa weye ku yeelina laakiin boloska ahayd boloska kacashiyaa ku jirta sidaas dadkii lagu leewo baxay dargigii markuu soo galayna wixii ugu hidaa waa dhacay waa soo jirin waxa weye sadaka ku xasuuqay oo wuxuu yidhi waagii markii soomaaliya wadanka iga qabsatay waxa igu kalifay waa deegaanka soomaalida oo isaguna haddana markuu soo noqoyo dambana dad badan ku laayay wuxuu ku laayay waagii markii waxa weeyaan askarta laga xooggeliyey sababta laga xooggeliyey soomaalida ahayd usubarata deegaanka marka wadankiiba dadkiinu ka xasuuqo marka mataqaanaa intaas isaguna dhibaato badan mugaysa waa afar jeer dhibaatada weyn كده وتقول التحريرية وطبعا هذا ضرب ضربين خطأ بعد شيء صاروا حقيقة بس يثبت في وضعنا المقابلة اللي كانت بيعتبر زي ولاد وكذا الشنة تعتبر ضرب على وصوتي هو حاول هذا كعاش شيء في مطبقة البلاط في كمان هو حاول يجيب بس الإرسال الشعبية اللي هو وصوتي هو إثيوبيا وحاول يتذكر الجلبات وحاول يقشين وكذا اللي أيها قشوا حسوقها فرق يكتب حسوقها توصل بالشعب الواقعي في فريسنا وحيث يستي تبع على شو شقيا وما كايدون هذا بما كنت بتضحية وحاول وصوتي حيث تري فرصة وحقيقة هذا تكمل تروي كريتا إن الجوشة كلامها وفوق وبس تقول حتى ما هيقول ده أنا وحنا سوق النهاية تقول أبي لا أبي يريد وجله ما كأبي يريد بشر أيها حوالي أشجار مع البيئة وحنا وقت المعلم وحنا وقت طبيعي حيث الكبير وضع دور فجرة دور واجر إنسان وضع دور فجرة مثلا وحنا كتاب مثلا دور عجيزه دور وحنا كتر ما الشعبية من الجري وكتر ما شعب هنا مثلا أبو جمادان ما يجري مثلا الشعب كله جمادان الله يكفى حتى ضرب جمادان ولما يكتب جمادان الشعب كله بيجي الصوتين هو أي وحوي محمد قراءة يجوا حوينا أفضل فرقان يذكر وقال كلام يذكر الشعب يذكر ذلك يسوي حرم وحوالي في كل كنا حرم الجوع بس أيام اللي تحل الكلام في مصادره ممكن أنت إيه تعرف هذا الديان كان سوكنها فضلاتها أنا شفتها أما تقصد الجار غيره وقوله هذا لو في بيني سبع دولار تسبعة في الأول بعد ذلك المحاكمة وقتي وخصوصا قناة يوضع قصادر إني يعطوا الصميم المحاط يكون
kurteedu iseen oo dalkiina waxaa markay leynayaan kuwa dadkii kula dhashee maad ka qabatid muslimiinina haymaa bilow raacsan waa nin iyaga mataqaanaa markaa wuxuu igu yidhi haddaanu qiimeyno oo weydiino oo nidilka weydiino oo dhaca weydiino idinka ii soo xaran maayaan oo caaqibaan leena hore maxageena kusareynaa buu yidhi inkastoo la kusanay waa inuu kasro oo magacu kusano imaanahay halka kaa jirinaan dhaa weyn marka ninkii wax wuxuu ii sheegay mataqaanaa kaas isku dhan inayna cidna qiimeyn karin idin macaqoli buu leeyahay marka kama hadlo inkastoo sameeyana u sharciyana way uga garan karo inta hadda inta saal uu kusay erey naftii buu ugu yiri iyo kuma noqonaya hadii anigu markaan dibay tas nin kale dad uu dibay heer kale markaan heer dibay oo heer dibay heer kale uba waxa weeyaan heer kale dibay oo saasana waxa uu jiray aniga walaga dacwoon heer kale waxa uu taqaanaa inuu kale ka dacwoonaya oo waxa uu taqaanaa baadiyay horta arrinta inta ku soo koobay waxaan galay waa soo jeedin waxa weeye dad walaal nabad ay qaata qoshar marka waxa weeye fiican oo taqaanaa inta lagu guuleystay boqolkiiba 95 iyo deegaankeena maanta waa la wadiyo waxa weeye adduunka boqolkiiba boqol afardooda sidoo sida qabto waxa weeye waxa ku raay shaqada xudooda ka dhigata ama challenge-na waxa weeye marka inta camal la nabadgelyada waxaana nabadgelyada ku aqoon saaxiibada iyo maamulada dhalinyarada ilaa waxa weeye gudoomiye tuulo iyo ilaa waxa weeye heerka waxaa weeyaan maamul dhalinyarada oo waxa uu ka waxa ku jira nabadgelyo iyo ku horumarneedba laba ciidan baan leenahay ciidanka horumarka ciidanka horumarka shaqeeya iyo ciidanka horumarka iyo ciidanka nabadgelyada labaduba midna nabadgelyadu ka shaqeeya balaas horumarka midna wuxuu ka shaqeeya horumarka soo gasta balaas nabadgelyada labada ciidan baan leenahay labada ciidan dhalinyaro waa dhalinyaro waxa weeye maxaa kula waxa xooy aad wanaagsan yahay oo waxa weeyaan aad wanaagsan isla Afrika ma taqaanaa dadka jira Afrika aad ugu wanaagsan yihiin oo mid qayra aan ku jirin oo ashkooda wanaagsan yahay bareeto wanaagsan aad waxa weeyaan hadaan taasi tigo waxa weeyaan qorshe la sameeyo qorshaha nabadgelyada waa lagu noqday aad iyo aad u wanaagsan waxaan tusaale u ah in maanta ama deegaanka taasuu فضلاتها أنا أشوفها أما تقصد الجار الغيرة وقولي حتى لو كيمين سبع دي دولار في الصباح في أول بعد المحاكمة وقتي وخصوصا خطرات يوقف قتال إني يواصلوا الصومالي المحاك يبقوا استهدوا الشيء أو تركينا محامك إلى أيام هو ده في كل شيء ما تكتبت المسلمين من الخيمة بلو رأسه وأنا أريد مثلا أو wuxuu igu yidhi haddaanu qiimeyno oo weydiino oo nidilka weydiino oo dhaca weydiino idinka ii soo xaran maayaan oo caaqibaan leena hore maxageena kusareynaa buu yidhi inkastoo la kusanay waa inuu kasro oo magacu kusano imaanahay halka kaa jirinaan dhaa weyn marka ninkii wax wuxuu ii sheegay mataqaanaa kaas isku dhan inayna cidna qiimeyn karin isagoo dib baa samaysay idin macaqoli buu leeyahay marka kama hadlo inkastoo sameeyana u sharciyana way uga garan karo inta hadda inta saal uu kusay erey naftii buu ugu yiri iyo kuma noqonaya hadii anigu markaan dibay tas nin kale dad uu dibay heer kale markaan heer dibay oo heer dibay heer kale uba waxa weeyaan heer kale dibay oo saasana waxa uu jiray aniga walaga dacwoon heer kale waxa uu taqaanaa inuu kale ka dacwoonaya oo waxa uu taqaanaa baadiyay horta arrinta inta ku soo koobay waxaan galay waa soo jeedin waxa weeye dad walaal nabad
fiican oo taqaanaaye dadka lagu guulaystay boqolkiiba 95 iyo dix deegaankeena maanta waa nabadgelyo waxa weeyaan adduunka boqolkiiba boqol la qabto mawlidkaba si la qabto waxa weeye waxaan ku rahay shaqada xudooda ka dhigata ama challenge-na waxa weeyaan marka meel fiican ma maraysaa nabadgelyadu waxaana nabadgelyada ku aqoon sacbadalida iyo maamulada dhalinyarada gudoomiye ilaa waxa weeyaan gudoomiye tuulo iyo ilaa waxa weeyaan kabalnida waxa weeyaan maamul dhalinyara oo waxa weeyaan waxa ku jira nabadgelyo iyo ku horumarneedba laba ciidan baan leenahay ciidanka horumarka ciidan horumarka shaqeeya iyo ciidanka horumarka iyo ciidanka nabadgelyo labaduba midna nabadgelyadu ka shaqeeya balaas horumarka midna wuxuu ka shaqeeya horumarka soo balaas nabadgelyada labada ciidan baan leenahay labada ciidan dhalinyara waa dhalinyara waxa weeye maxaa kula waxa xoog aad u wanaagsan yahay oo waxa weeyaan aad u wanaagsan iska afrika mataqaanaa dadkaas jira afrika aad ugu wanaagsan yihiin oo mid qayra aan ku jirin oo ashxood wanaagsan yahay barayso wanaagsan aad u fiican weeyaan haddaan taagtisi gugo waxa weeyaan qorsha la sameeyo qorshaha nabadgelyada waa lagu noqday mid aad iyo aad u wanaagana waxaana tusaale u ah in maanta shacabka deegaanka soomaaliya etoobiya gacanta ku hayo nabadgelyada oo ciddu doonana uu ku marti qaado ciddu doonana waxa weeyaan shirku doonana ku qabsado madaxdeeda iyo waxa jiraan mas-uuliyiinteedana xilligay doontaan habeen iyo maalinba waxa weeye dadka soomaaliya si nabadgelya oo taama loo soconayo waxa booliska cidda shaqaa kaashanaya dhisaha deegaana waa shacabka soomaaliya oo waxa weeyaan aan ka qaadnay harboorkii iyo eryadii ay saareen dadkan gacanta shaqeeya loo saareysay ubo iyo wixii lamid ay saareen ubo iyo wixii lamid waxay sugtiin maanta in nidaamka ubanimadu uu noqday nidaam lagu shaqaysto ay PLC noqotay waa baraka mataqaana mid company ay noqotay oo share reer badan leh inta badanna sheerarka waxaa dad badan baale oo sootii oo maanta sheerka adiga kuwa xataa hadda sheeganay inay u badan yihiin waxa weeyaan ma aha mataqaana waxa weeyaan dad kale soo gurura xataa marka waxa weeyaan haddaad taas kusii gudbo أكثرتي إيجاد من الجمهورها حدها حدتي والله شوي كنت شوي جوعها من الكلام كنت شعور كنت مصدر صعب يتصل بعد ما تعد جسا أنا واحد فينا تقناي واحد فينا ترى والله مش كذا بس وكان حركة عالم فقط كان هاتو حج صدر واحد أكثر يعني أو أكثر inuu qubaan kusoo galo wadan shaqada uu soo galay imaan uu kusoo galay sida waxa mid kusoo galay bal loo geli karo waxa uu yahay kusoo galay laakiin oo isagu ogsoon yahay in la qabado wala qaba marka waxa weeyaan nabadgelyada weel fiican ma laha waxa nabadgelyada gacanta ku haya shaqada iyo ilaahay oo mahalle waxa weeyaan dhalinyarada Soomaalida ayaa gacanta ku haysa shacabka gacanta ku haysa haddaba nabadgelyada ujeedadiisa maaha nabadgelyada waxay u baahan tahay xaflado kudhabati horumar bay u baahan yihiin nabadgelyada waxaa dhibada oo qaata looga dhigay horumarka yaa looga dhigay qorsha la qaata qorshe horumarneed taas oo goobo dhanka waxbarashada isbedel balaaran baa ka jira waa sookin waxbarashada maanta intuu mooyaan 1 milyan iyo something ilaa 200 ugu yaraan walaa sameyn 1 milyan iyo 200 ayaa waqtiga maxaan ku raayay فرشة وقفتها سكولة وجامعات كثير كان وحنا هو بتاعنا وحنا قوية يسبدل كينيا ساينسي أو يعني حول بتاعنا مع ثم حنا هو بدل وحنا مثلا ساينسي أو هو كان حول بتاعنا هذا هي هو حاجة أو يعني كثير يعني أيوة والله هو يتش أربعة هنا وحنا قال ما حول بتاعنا beeraha xoogaa saarnay dadka beeraha waxaan ku tala jirta in waxa weeyaan hadda halkii
صوت وسطنا صوت كل أو صوت كيتال كيتال واحد كيتال صار صوت وسطنا لكن وحيصير إنه يكونوا بيران نعم بيران أو بيران إنسان كل إنسان بدأوا فإذا كتبتوا وحاجين له إنه حوالي سنة كان توصل إنه هذا الجمال يتصابان إلا حوالي كيتال أو لا يسوق البا من خلول شيء المحاضرة حب أدور الشباب وخصوصا كبيرة ترى تصوب على لوفر لكن هذا سبب في هذا الصوت في صوبه صوب على كم يشرب غلط في حال بعد الوقت وعمل يقول شيء أو يقول بيرمين وحويا تفكير عن سيرنا كيف أصوبه وقت بيت يوم أصوبه material oo awayaan soo xasilana fasiyi waqaysan oo saddex bilood ku dhayo taasi afar jeer loo goostaa awayaan oo bilowgii ku dhalay lixda bilood inay ku dhasho awayaan laba bilood iyo sanadkii marka awayaan si fiican sii takuleen badan baa si afar laga taageeray si balaag ma ka jira biyaha dadka biyaha صار لو تسوي أو يعني بعدين كمان فقط على شيء ليس لواء حاجة أفراد إنه بير عام فرصان ما نحن يعني فلا تصوب هاتو كثيرات تدوم بابي وبابي لكن كل أذكى وحاول يقرأ شكواي يعني يقرأ شكواي اللي قبلي وحاول يخبره ريالي اللي وحاول يروح ريالي وأقول له حاول يتقال يتقال حيزيد إلى قبل عشان البيع إلا يواتير وحيد السكية إلا يشلامه حيد السكية إلا مجاله حاول كعري أو ملابس هو يشوفه شلا وجواسي يتمسك أنت إلا هو يصف يقال البيع حتى اشتكى كشامه إلا يحاول الدوام إلا كشام أنت عايزه إلا بالمودي وليه وكميرا طبعا جواب قايل جيران صلاة صوقة حشينا وكذا وعملها جواب أنا حشينا وحاجات كذا بيد ده طوالية ميرا أخذ جواب لو حشينا هي وحاجات من الحفرة مرتي ديجانا كلا ديجانا شاسة هي لو حلو كل شيء ولا يكسر ديوال ولا إذا عمل جواب أنا شفت جواب بيجي ورايا إذا كاتو حاجة بس إن أنا وادي يجي لقيها ميرا هو حويا إنك بين ذلك بقوة بالسر إشراك فيها لوجاري مرتين ثلاثة لوجاري لكن حاولوا قالوا عدد كبير لوجاري تقريبا يبقى بقوة بالسر ولا كل جاي كان هل كان مرة بعض ذلك حتى إذا كانوا يحلقون بلا عرش قالوا جواب وقري فكتير إلى الحب كان كم طريقة أويان ما تحرز ولا بدايات ولا أيام كمان أويان ولوسوتي اللي هي تفرق خدمه وأنت طبعا أو الشعب كمان الآن لا تشمع وخاص وحويا تركي دواتو عشان دواتو وحويا الشعب في واسط بكائن هنا وحويا ولوسوتي بكاء عظيم حويا عن سكون صادقون من الجريدة العلمية سبعة حلوات المشكلة العلمية سبعة حلوات قصي من الجريدة عن حلوات كل وحويا الضمير وحويا مثل الشلي كان سنة لبسوا تجاري ديان كان إنه وحويا بوطلوس استجيب معانته وحويا من دولخا دولة الشعبية خاطر في بحسي أيان هربوا بدل لي خوكي صادر في أيان هربوا بدل لي أويا عدو لما عدو ولم يجي بالصومالية صوب نص صادر أو حركة قالت أو حوالي كلام سارة قال لنا وحوالي حاجة طالعت من السيارة على الصفحات وكي بس فيه وحوالي بشميل شعبية صادق أقول للدنيا الزراعة في القرى وصليت محمد قالوا لنا زراعة على القرى قريها رصد أنا عيلة تجيب بويس لو حاجة بطل عفوهم الشعب طلعوه قالوا قريها عيلة بطل وحوالي زراعة على هذا بكرة إنسان إن بيمشي وحنا والبيت هاي نجي أفر سنة حلوته شيء وحوالي أفر عشاء وحرقني أنا وحوالي الحمد لله حرب صار بعد صدقة أو بقول القصة بيجوا ولا قصين أو يجوا هم كل وصل قصين وقصوا بحاجة زمان يعني كسبوا بلا ويسوي
laba boqolka kontonkiiyo markii aan wada hadlay aan ku nidhi waa xagee ku socotaa maxaa u socod waxay yidhaheen shawri iyo waxaan ku soconay iyo meesha la yidhaha waxa weeyaan garac meelaha la yidhaaho waxaa kugu laanta garaceed waxa weeyaan ooman iyo bawa waxa weye dulqabowa ku soconaa bay yidhahen haddaa halka ku socotaan oo dulqabow iyo ooman iyo bawa ku socotaan dee bushaar baan ku daraynaa shacabkiina gaaya oo waxa weeyaan meeloo kala gala dowladnimadana qaata halkaas ku socoteena ku socda loo ilaaliya oo nabadgelyada iyo waxa weeyaan dadkeena iyo wixii shacabka dhan ka ilaaliya intaan ma ku heshii karnaa kusowga qaata hawan ku heshii karnaa intaan ma ku heshiiyen deqolkiiba galeen nabadgelyada qaata iskuulkiiba qaateen waxa weeyaan waxaa dad la yidhaaheen waxaan u baahanay inaad 250 anaga sidii shacbiyada laba soo baro isku meel la dejiyo waxaa ku oo jeclaysiin aniga haddaad 250 dhaqaaqlaa oo iska tagtaana ka warramo oo haddana hadma naga soo bilowdaan waxay yidhahdeen aniga de shacabkana waa ku socday marka sidii bay shaqada ugu wanaagsan leedahay oo ay soo isbeddelka shaylaatanaadda liidaasha shaylaatanaadda waa dadkii shalay ay haween taqaan loogu talagalay nabadgelyada u dhibaateeya maanta ayaa laba ka shaqeyn bishii noocaa dibba u shiitabeen iyagoo waxa weeyaan nabadgelyada goya shiitabeen nabadgelyada kaasa in waxaan wax meel jiro ahayn ninka canshay inay ku jirto waxaad garan karta fataa haween ashaabtaas qabadaha ma bedelo masaaf mantra inuu bedelay waxa meel baa lagu karanteeya oo la iska ilaaliya laakiin waxaan ogsoonahay waxaa ku shiray aanu canshay ka jiray taas waxaa ku shiro kaliya oo shacabka soo adeegay hooyaday gaabaha dhibin mana tusane sidaa walaasha aad u jeceshahay inaad tusane waxaa weydiiyey walaasha ka war haddii la fursado maylay ka jeclaan mise ma jeclaan ma jeclaan yadi dee mid kale walaashiina ha tusane ha dhibaateen hooye kale ha dhibin hooyadaa ma dhibaateen aabbo kale ha dhibin aabbaha kale jeceshahay aabbaha laga jeceliye marka markaa masaa u jeceshahay wax markaa loo jeceliyay intaan kuusi warna haa masaasaan kuushiyay saasay soo horgalay nabadgelyada suba sicir bilisa markaa leer kaasaan jeeda oo aad fara badan lagu subay si duuduba haddaan usoo dhigo nabadgelyada meelkaa xumaysaa ugu dambeyn waxaa loo qashirta inaan dalka nabadgelyada iyo maamulka suban iyo horumarka isbedel ballaaran ka keento gaar ahaan inaan la dagaalano soomaalinimada oo qorshaha guud ee dowladda federaalku ay dhigatay ee ah maxaa ku etoobiya inay noqoto wadamada dhaqaaladooda dhexaadka yahay ee waxa weeye maxaa ku raa maalintii kale dakhliga mataqaanaa ee ka baxsanka soomaalinimada lagu tilmaamo oo ka sameeya midka soomaalinimada lagu tilmaamo yani inaan ka qalijabino soomaalinimada ayaa loo qashirta taasna aad loo dhigay deegaankeena inaan lagu arkino cid gaarsoonay aad loo dhigan tahay wax mid gacanteeda ku jirto maxaan keliya waxay u baahan tahay in waxa weeye wax la beerto oo adduunku waxa wax soo saarka dhulka la galo bay baahan tahay dadkeena waxaa soo duw abandiga ugu wanaagsan adduunka wuxuu ka baxa duligeedu ka baxa deegaanka afan ka baxa intuu ka baxa yaa soo diimaysa male waa la soo diiy adduunka etoobiya meesha laga caqligana waxaa ka taqaana deegaanka faafan bee garaan deegaanka sigiyo mataqaana duligeedu waa qabandiga saan ka hadla meel kastana waa la mid hadda saacada noqo waxaa dad qiyaas garo oo waxa u dhashay waxa weeyaan dadweyne u dhashay oo og garanaya qabandigii ugu wanaagsan ka baxay waa dad kala duwan doonaya haddii waxa weeye maxaa ku ahay miro kala duwan la birayaasha ugu wanaagsan baa ka baxa waxaan leenahay ilaa sagaal weli baan leenahay maalmo waxaan leenahay afar weli baan leenahay afar weli ma waa sagaal weli haddaan soo qaado waxa weeye faafada iyo shaanada weli kama dhacaan sababtaa lix bilood bay qabaan toddoba bilood bay sana socdaan toddoba bilood bay socdaan sax hadaa socdaa toddoba bilood weliyaal fara badan waxay mataqaanaa yaa socda waxa weeyaan marka ilaa dhowr iyo toban weli oo waaweyn oo aan adduunka waxa mataqaana u haysan mahaysata haddana waxa weeyaan gaasha waxay la sheeganaya hasta wax ilaahay ugu qabtay maaha ilaahay deegaanka marka tusiino ka meel kasta waa saarayna aan garanaya weliba waxaa laga yahay ama halkaa una fircawnida waa soo meelo badan oo caalamka meelo badan oo caalamka mataqaana waa soo daray oo toddobada shanta qaadada adduunka waxaa haystaa sawirka waxa weeyaan kala qaado kasta waa haya ku jira inta kuma jireen waa la haya waxa weeyaan meel deegaanka in la dhiga ma naqdo waxa weeyaan horumarka ugu wanaagsan baa laga samayn karaa marka waxa weeyaan waxaa loo qasisay in la fitro soomaalinimada sida fitro loo qabo oo exportiga waxa weeye mataqaanaa la xoojiyo adduunka oo ka dhoofino waxa weeye sida halka lagu saaraa la dhoofiyo importigana waxa weeye mataqaanaa aan joojino walaashaan hello
laguu soo dhaweynayaa. Waxaa kale oo ay jaaliyaddu kaa codsanaysaa si official ah in aad mar noogu timaado Canada naga qayb qaadato jaaliyadda iyo horumarkan ay wado si aanu si wada jira aynu u wada muujino taageerada aynu u hayno dowlad deegaanka suuban iyo maamulka ka jira halka ay adigu hormuudka u tahay madaxweyne cabdi maxamed cumar. marka jaaliyaddu waxay aada ugu faraxsan tahay hadalkaaga, waxayna aada ula dhaceen waxyaabihii dhinacyada badan taabanayay ee aad ka hadlaysay xagga beeraha iyo nabadgelyadu muhiim ha u noqdaan ama xagga wax soo saarka. waxaanuna ka Canada ahaan ballan qaadaynaa annagoo ku hadlayna magaca dowlad deegaanka in aanu taageero hiil iyo hooba ah idinla garab istaagayno. mana jiro wax nabad ka fiican oo oo ay nolol ku iman karto, wax hor istaagi karaana ma jiro. taa waxaanuna go-aansanay go-aanka inaan qaadano. halkan haddaan si kooban ugu soo gudbiyo, waxaa ka abuurmay 3 ilaa 4 jaaliyadood magaalada Edmonton oo guddoomiye looga dhigay Camaar Sheekh Cabdullaahi, wakiilka guud ee dowlad deegaanka Canada Khadar Sheekh Axmed weli Boojali, Saskatchewan gobolka la yidhaahdo oo isaguna guddoomiyaheeda Xuseen Maxamed Cabdi Xuseen Dhakal ah, iyo magaalada Fort McMurray oo iyadana Khadar Cabdiweli, Granberry oo isagana uu matalayo Cabdi Dhagacaleen oo uu ka yahay guddoomiye xogayaha guud ee iyaduna xagga dumarka oo Xaawo Gadheere ah. shirkana qayb weyn oo muhiim ka geysatay wakiilka ama afayeenka guud ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Canada oo iyadana loo doortay Cabdiyare Baynax Sheekh Cabdiyare, Khadar Daramadar oo isaguna rag sida weyn wuxuu soo agaasumay abwaankii hore ee Ubbo ama oo nalaftaba aan idhaahdee oo ninka la'aantii una shirkan suurtoobeen ah, abwaan Lambad oo gabayo maanta taariikhi ah ka soo jeediyay shirkan, iyo dhammaan odayaashii iyo waxgaradkii iyo siyaasigii iyo culimaadudiinkii iyo caruurtii iyo haweenkii oo dhammaan hoolku qaadila ayahay maanta. madaxweyne waxay ku leeyihiin waanu ku salaamaynaa, waxaana kugu salaamaynaa salaanta islaamka ee assalaamu calaykum. waxaana ku leenahay waana soo dhaweynayaa Cabdixakiin Cabdiqaadir ayaa isla hees halyeyga la yidhaahda tiri. marka madaxweyne waxaanu aada iyo aada ugu faraxsannahay in aanu shirka nagala soo qayb gasho adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdullaahi iyo wasiir ku-xigeenka qurba joogta iyo dhammaan madaxda dowlad deegaankaba. waxaanu u salaamaynaa si guud. waxaanuna hadda kaa codsanaynaa in aad noo sheegtid xilliga suurtagal u ah ee aad nagu iman karayso dalka Canada si official ah, si dadkuna hadda ay ugu sii xisaabtamaan PR galowgaas. ugu dambeeyay noodkii ay qaatay oo ahaa idinka waxa weeyaan hadda waajibka idinka saaran waxa weeyaan sabab qabkii looga maqlo mala maqla waayahay waxaa ubajoogta halka kasta iyo kuwa kale waxa weeyaan maxaa kura caalamkaba marka horeysa aan inaan uga mahadceliyo isxilqaanka dareenka wadanimada idinkoo halkaa jooga inaad waxa weeyaan aad isu timaadaan. waxaan dhihi karaa ma aha arrin mid yar, waa arrin aada u weyn. waxaadna furista waxay u baahan tahay waktigii iyo maalkii iyo naftii iyo waktigaas iyo waktigii oo xidid iyo madaxsuna waan garan karaynaa. taa marka inaad dadkiina la fadhiisataan aad baad umahadsantihiin. waa ogsoontihiin kuwa waxa weye mataqaanaa qubajooga dhibaato loo gaarsiiyey isbedeladan ayaa jira. kuwa waxa weeye maxaa ku rahaa ku xanuunsaday baa jira oo waxa weeyaan dhibaatooyin fara badan kasoo gaadhay baa jira. kuwa waxa weeye deegaanka Soomaalida waxa weeye xataa waxoodan ay kabaan shacabka noqdeen baa jira. idinka waxaan soonahay idinkoo la idin dhiman inaad tihiin jaaliyadda ugu adag ee waxa weeyaan abaabushay waxa weeye maanta waxa weeyaan diiday in waxa weeyaan shila laga qaado halkaa waddankooda iyo carruurtooda ayaan sii baahsoonahay. ugu dambeyn waxaan saaranayaa haddii la yidhaho inaad waxa halgankaa sii wadaan oo dhibaato ayna ogaataan halgankan aniga Cabdi Maxamed ahaan hal qodob aan u sheegaya oo inaad ogaataan aan maxaan ku raacaa oo kugumaysa ii sheegay waxa weeyaan
waxa jid la samaynayo waxa aan horumar samaynayno ceelka aan qodayno ugaaya tabagal shaqada waxay oo dhan tabagal u baahan tahay qorshe u baahan tahay wax badan dhibaato badan baa laga soo gaara oo aad iyo aad u weyn dhibaatada faraha badan oo dhan waxa weeyaan waxaan ugu dul qaadanayno ee lagu dul takfiira dhibaatooyinka faraha badan laga soo gaarayo waa xabeen waa mush shacabka dartiis weeyaan idinkuna oo maanta cid kale oo aan markaa laga rabo oo aan leeyahay ama kuwa maanto oo shacabka aan ma jirto miisaaniyada faraha badan oo horumarka laga shaqeynayna ilaa iyo maalintii waxa weeyaan dowladda federaalka ishaaqeynaya magaaladayso ay dhaatay miisaaniyadaas guud jirto wax hadda cusub oo la keenay qalabka la soo diiday iskuulada la keenay hoyka la qabanayo waxa weeyaan ilaa maalintii kilka la aasasay ilaa maanta way waxaa la dhisay oo dhan badanba waxay dhahaa mataqaanaa lacagtan waxay dhisay lacagtan waxa weeyaan lacag waxa weeyaan nusu ku jirtay oo horumar laga shaqeynaya weeyaan hadday noqoto ciidanka mushaarkiisa iyo hadday noqoto hooy ummadda laga shaqeynaya hadday noqoto wax kasta midna ma aha mid waxa weeyaan hadda la keenay weligeed lacag ku joogayahay ama waxaa ka wadaa ummadda iyo shacabka dartiis ayay shaqaalahan iyo maamulkan iyo aadoodu ay afrika qabteen oo shacabkooda darteedii mataqaanaa ooyaan hantidooda inay kaga ciyaaraan ay waafaqeen marka maxaa loo baahan yahay idinku ina mataqaanaa ay shaqaalataan ila waxa weeyaan shaqaal qabanaysa waxa weeyaan waxaa sidooda mataqaanaa waxaa la oran jiray ixtiraam ay noqoto shacabkii cawu qabataan oo buuda dhibaatadii kasoo gaadha ayna mataqaanaa ayna kuwaanin go'aanada ku dhibaatay ayaa ku jirtaa ugu dambeynta ayaa maxaa ku rahay kusoo diraysaan qodobka u dambeeya hadda waxaan idin soo diraynaa sida ugu dhaqsaha badan ilaa mataqaanaa bil waxaan idin soo diraynaa kooxdii ugu horeysay waxa weeye maxaa ku rahay keli ka socoto iyaba doontaa dilaya ugu badaan ilaa bil iyaga waa idin kusoo diraynaa insha allah madaxweyne halkan waxaa halkan kaa salaamaya oo iyaguna maanta shirka naga qayb galay Khartoum State of Somalia wakiilkeeda Cabdixaafid iyo Puntland State of Somalia ayaa iyaguna dadka nabadda nagala shaqeynaya kamid ah taageero weyn oo hili hoo ana u haya maamulka suuban iyo nabadgelyada iyo horumarkaba Soomaali kale oo badan oo ka soo jeedo isteedyo fara badanna waa joogaan labadii xildhibaan ee Mowlid Qadna iyo Jaafar Macallin ayaa iyaguna nagala qayb qaadanaya shirka iyo odayaashii Xasan Jabhad iyo Cabdi Dhaga Caleen iyo Jaranaal Caydiid oo raggii aad hore kulley iyada oo aanu idiin soo gudbin doono berritooda haddii Allah awood leeyahay ama caawaba cajaladan oo si buuxda ah sidoo kale wakiiladii maamulka Jubbaland ayaa iyaguna meesha jooga marka waxaa si guud looga wada shaqeynaya nabadgelyada horumarka waana idinku ammaanaynaa wax qabadka muuqda ee aad samayseen waxaanuna codsanaynaa wafdiga xilliga uu noo soo imanaya kulley wakiilka guud ee dowlad deegaanka Khadar ayaad la soo xiriiri doontaan waxaana jeclaa wakiilka oo doonaya inuu madaxweyne si gaar ah kula hadlo inaan ku wareejiyo microphone-ka Khadar Axmed Wali Boojali السلام عليكم مدحونا waa ku salaamay kugu dheeray mayna waxaan rabnaa inaan laba eray ku dhaho runtii dadaalkiina aad baan idin garab taaganahay midda labaad waxaan rabaa inaan kuu sheego inaan maaragtay halkan hadda madaxweyne alle ah waxoogaa waa xagga tiinikada marka waxaan rabaa inaan kuu sheego inayna halkan ka jirin hadda wax nabadiida dhammaan shacabka Soomaalida Itoobiya iyo dadka dowlad deegaanku nabadii bay qaateen maanta waxaa halkan nala fadhiya dadkii ka tirsanaa la khalday ururkii hore maaragtay oo nabadda wada qaatay waxay ka shaqeyn doonaan horumarka iyo nabadgelyada waan idin soo dhaweynaynaa waxaan ku wada salaamaya odayaasha iyo waxgaradka gobolka Alberto oo dhan nabaddaa la wada qaatay nabad baa naas la nugala idinkuna waan idin taageersana waxaa kaloo rabaa inaan kuu sheego maanta adduunka shacab baa lagu tartamaya dowladdu shacabkeeda inay u nugulaato wax maanta adduunka laysku dhaafay waa shacabka
marka muhiim waxaa ah inay dowladdu shacabkeeda u dhuglaato oo sida aad haddaba shacabka usoo jiidateen inaad shacabkiina usoo jiidataan taasina waxay abuuri doontaa in horumar iyo nabadgelyo la gaaro halku dhageyguna waxaa weeye nolol iyo nabadgelyo aad baan kuu salaamaynaa madaxweyne waadna mahadsantahay waana kusoo dhaweynaynaa wasalaamu calaykum madaxweyne mana maqlaysaa madaxweyne waxaa kulley maanta farxad weyn u ah dadka edmonton joogay inaad nala soo xidhiidho iyo inuu shirkan suuroobo oo qabsoomo hase yeeshee ma jiro wax carqalada ama wax dhib ah oo hortaagan inuu shirku qabsoomo wuxuuna u qabsoomay si aada u qurux badan waxaanuna kulley sidai hadda aad noo ballan qaaday sugi doonaa insha allah haddii allah awooda la yidhaha wafdiga ka socda dowlad deegaanka ee ka imanaya magaalada jigjiga iyo waktiga ay soo bixi doonaan intaa xidhiidha iyo dib ka samayn doonaan noqonaya waanan soo dhaweyneynaa waadna mahadsantihin aad iyo aad baad mahadsantihiin boqolkiiba boqol ugu dambeyn waxaa weeye waxaan ku ahaa igu salaan shacabka anuguna waan soo fursan doonaa haddii la yidhaaho shirkeennii oo halkiisii inaga soo socda madaxweynihii oo inagala qayb qaatay waxaan marka rabaa inaan kusoo dhaweyno shirka si waktiguna waa iska cidhiidhi aynu soo gabagabayno jenaraal caydiid inuu maaragtay dhowr kelmadood in la yidhaahdo cabdiweli ayaa ku xigaya khadar ayaa ku xigaya kadibna dhaantadii ninkii ciyaaraya ama waktigiisii baa kulley inoo soo harsan marka caydiid aan ku wareejiyo بسم الله الرحمن الرحيم marka u horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan isla qaadano anoo jeclaa madaxweynuhuna maqlahayo inaan madaxweynaheena cabdi maxamed cumar aanu magac ugu daro magaciisii hore waxaa weeyaan magacaas wuxuu noqon doonaa cabdi maxamuud cumar mandela cabdi mandela waxaan rajaynayaa in magacaas la hirgeliyo wuu astaahilaa qaabkii mandela u dhaqmaa runta marka uu dadka la ciyaarahayo marka uu dhex boodahayo marka uu hawsha u qabanayo yacni magacaas waxaan ka codsanaynaa maamulku inay u gudbiyaan madaxweynaha uu naga aqbalo intaas markii aan ka baxo waxaan ammaan usoo jeedinayaa dadkii soo abaabulay shirka kan waxaan kaloo salaamahayaa dadweynaha kasoo qaybgalay rag iyo dumar waxaan rabaa halkan inaan ka sheego fadlan si shirku durbayna u gabagababo waktiguna aynu u ilaalino fadlan in yar hala fadhiisto qofka hadlayana hala ixtiraamo waxoogaa hala dhegaysto shirka maamuuskiisa iyo cajalad baa la duubaya cajaladda waa diraynaa marka ilmada reyaal waxoogaa fadhiista shirkuna si oo habsame inoogu dhamaado waktigana aynu ugu xisaabtano haddii allah awooda la yidhaah waad mahadsantihin waxaan rabaa halka inaan ka sheego horta shirkaanu ma aha shirkii ugu horreeyey ee lagu taageerayo dowlad deegaanka soomaalida wuxuu waxaa weeye waa waxaan dhihi karaa waa shirkii labaad hadda ka hor ayaan halkan ku qabannay aniga cabdi aadan iyo casharo dadkii noo yimid waktigaa isaga ah wuxuu ahaa dad aada u yar runtii haddana messagekii waan gudbinay halkan ayaan b b c-da kula hadlay anigu runtii intii maqashay rag badan oo waagaa igu qamaamahayey ayaa hadda horta ayda fadhiya oo u arkahayey inaan etoobiya jaajuus u nahay oomaan ahayn waxaan u halgamaynay shacabkanaga waxaan kaloo rabaa halkan aan ka sheego waxaan ahaa qurbi joogtii labaad ee waddanka tagtay gruubkii koowaad wuxuu ahaa xasan jamhad raggii uu la socday runtii waxaan ku soo aragnay inkastoo uu markaas madaxweynuhu uu ahaa bilow waktigaa isaga 2010kii bay ahayd xasan jamhad wuxuu la socday oo waktigeedii uu ku aaday waktigii uu sheekh ibraahim qaatay nabadda aniguna waxaan ku aaday markii ay gruubkii onelafta ahaa ee macaw hogaaminayay ay nabadda qaaday inkastoo waktigaa isaga
aan horumar saasi jirin haddana waxaan aragnay infaalaha oo madaxweynihii uu bilow ahaa waxaan aragnay infaalaha ka soo socda waxaana si buuxda u taageernay nabadgelyada haddaay mawlid wuxuu yidhi cabdiweli iyo caydiid oo waayo badan usoo jooga runtii gobolkan waayo badan baa noogu soo joognay ama taariikhda waayo badan baa noogu soo joognay anugu waxaan xusuustaa kolley ilaa nasrullaahi aabbahay baa ku jiray waxaan aada u xusuustaa oo kale WSLF waxaan ayadana xusuustaa oo xusuustayda aada ku reebtay waxyaabo fara badan wixii halgan ahaa ee ka dambeeyey horta waxaan idiin sheegayaa wixii halgan ahaa aan soo gallay midhihiisii waan gaadhnay maanta intii ku dhimatay allah u naxariisto intii si khalada ugu dhimatayna allah u naxariisto intii si saxa ugu dhimatayna allah u naxariisto maanta midhaha aan guraynayno waa halgankaa dheer ee aan soo gallay horta madaxweynihuna waqti badan buu sheegay oo ku celceliyay oo yidhi halgankii aan soo gallay midhihiisi waan guray walaalayaal waxaan idiin sheegayaa taariikh yar baan idiin sheegayaa anigu waxaan ku dhashay magaalada Shilaabo waxaan xusuustaa iskuul waxaa ka dhisnaa ilaa grade-ka 7 magaalada Qabtaareen waxaa ka dhisnaa waan filayaa iskuul ilaa grade 8 iyo wuxuu ahaa maaha markii aan dhameeyey iskuulkaas meel aan u kaco oo kale waan garan waayay waxay ahayd Ethiopiana waxba kama aqoon cilada kale ay jirtay waxay ahayd waqtigaa isaga ah inaan aaminsanaa qabiilka ogaadeen la yidhaahdo mooyaane inaan cid kalaba dhulkan ay degenin waxaan aaday Soomaaliya ayaan maaragtay anu shaqooyin fara badan ka soo qabtay waxaan usoo qaadanayaa taariikhda ayar aan leeyahay qabiilka ogaadeen la yidhaahdo maa inaan cid kala degenayn waxaan u arkaa dadka hadda dhibaatada wada oo ka wadi weliba in yar oo ogaadeen ku dego dhulka kale ee Soomaalida aan gaadhin inayna aqooninba horta dhulka ay u dagaalamayaan inayna garanayn ma yaqaanaan kow Ethiopiana ma yaqaanaan yacni aniga Ethiopia iyo dhulkaas intaan soo barto waxay igu horreysay 2007 2010 waxaa weeyaan dhulka Soomaali oo dhan baa wada degtay dhulka Soomaali oo dhan baa wada degtay waxaa weeyaan qabiil lama xoreyn karo hal qabiil ma xoreyn karo hadduu isku dayo inuu xoreeyo waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego bini aadamku sidii horeba loo sheegay markii isbeddel uu jiro way diidaan sidii nebiyadii oo kale dadka majority-giisu way diidaan rag iyo dumarba waxaan idiin sheegayaa isbeddel aada u weyn baa jira Etoobiyada aan arki jiray mana haddaanan naqaaniba aqoonba amaana lahayn waxaa weeyaan maanta cid kaa xigta inaad prime ministerka Ethiopia noqoto ma jiro annagoo Soomaali oo isku duuban halkii waxaan kusoo gabagabeynayaa annagoo ah qurbo joog role baa inaga aadan waddanka waxaa weeyaan in aan waddanka maalgelino in aan dadkeena shaqo u abuuro iyo wixii la mid in aan la dagaalano kuwa halka dhibka ka wada dagaal fara badan baan la soo galay waana ceebeyn fara badan bay noo geysteen dhibaatooyin sharaftanada ay koletaa meel oga dhaceen waxyaaba aan ahayn waa fara badan bay nagu sheegeen inaan dheg loo dhigin ee halkaa laga sii wado waxaan kaloo rabaa inaan u sheego qolada maamulka waddankan aanu joogno community baa ka shaqeeya community haddaanu yeelano adag waxaa weeyaan waxaan caawin karaa ummaddii aanu ka nimi waxaan idinka codsanayaa inaad community ka dhigtaan oo carruuraheenna aanu isu keenno
oo xafiis aan yeelan oo u yeedhaan communitygaas soomaalida Ethiopia inaad ugu yeedhaan oo soomaalida Ethiopia oo dhan ay ka soo qayb gasho oo maamulka ay ka soo qayb gasho waad mahadsantihiin
taagan cabdiyara uu dadka gadaal jooga soo fadhiisiin dhammaan inaadan soo fadhiisa maxamed aadan gabdhaha habixina wax yar ayaa haray walaal wax yar 2 minute idinkoo raalli ah gabdhaha raalli ahaada waxaa inoo harsan 2 qof xaawo gadheere oo xogayaha ah magaalada Fort McMurray 2 daqiiqo iyo cabdiweli oo ah oday waay arag ah muddo dheerna taariikhda waddanka raggii wax ka hayaya inay inoo soo gabagabeeyaan shirka marka xaawo 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo fadlan waan kugu soo dhawaynaynaa kadibna cabdiweli hiirad ayaan u gudbinaynaa marka shirku wuxuu inoogu dhacay si aad u qurux badan wuxuuna u dhammaan doonaa si qurux badan fadlan waqtiga waan ognahay in qof walba maaragtay hawl leeyahay raallina ahaada waanuna idinku mahad celinaynaa dhammaan ka soo qaybgalkiina إلهي بقى محله دمان dadkii soo abaabulay shirka kan iyo dadka ka soo qayb galayba mahad ayaan u celinayaa waxaan u mahadnaqayaa oo aan u hayaa mahadnaq aad u fara badan madaxweynaheena deegaanka Soomaaliyeed mudane cabdi maxamed cumar iyo maamulkiisa kaasoo aan leeyahay guusha aad qabatay iyo wanaagga aad qabatay ee Soomaalida deegaanka degan ee aad gaarsiisay adiga iyo maamulkuba aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii dadkeena Soomaaliyeed guusha maanta aynu gaaray waa mid lama filaan ah inoo soo dedejisay halgankii aynu muddada badan ku jiray deegaanka haddii runtii aynu u noqonno waxaan aad ugu faraxsanahay waxa maanta qabsoomay ee ah wanaagga badan jaamacado caafimaad horumar dhulkeennii oo isbedelay iyo deegaankii Soomaaliyeed waxaan idinkula dardaarmayaa dadkiinaan meeshaan wada yimid iyo kuwa ka maqanba waxaan idin leeyahay garab istaaga maamulka madaxweynaheena iyo dowladdeenu ay wadato ee kilinka maanta ka socda waadna mahadsantihiin farxad weyn tahay inaan maamulka ka qayb galo xaawo gadheere waa halgamaa qofkuna halganku waxaa weeye naf iyo maalba kii uu ku huraba waxaa weeye halganku yaryarays ma laha xaawona waxaa weeye waxay aada ugu mahadsan tahay shirkan maanta inuu qabsoomo qaybta ugu muhiimsan ayay leedahay iyada iyo cabdiweli hiirad oo odaygii magaalada ah waxgaradkeeda ayaa waxaan doonaynaa cabdiweli isagana inaan kusoo dhaweyno si uu taariikhda guud iyo wacyiga isa soo bedelay iyo xaalad siday tahay oo cabdiweli isaguna bal khibradiisa iyo aqoontiisa wax inooga soo siiyo magaalada Edmonton muddo dheer ayuu cabdiweli deganaa waxaan marka kale iyaduna ku xiga cabdiweli maxamed aadan oo isaguna ah mas'uuliyiinta maamulka dowladda deegaanka ee magaalada Edmonton khadar daramadar ayaa isaguna 2 daqiiqo ama 1 daqiiqo aynu khadar siinayna kulli wax badan isugu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامي وعد كأيه راح يسأل لها. قلت ضدك شركة سوق بقابي مولد خضر كلا. دليل هذا المسيحيين قلت واحد لو بعدين وياه. وحال هذا النين بالله مو مرة بس بعض والله اللي جيت عليه. أروح عندنا قلت runtii deegaanka Soomaalida dadka Itoobiya dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya degan yihiin iyo inagu taariikhda waynu ka dhagsanahay taariikhda waxa lagu laabto maarta lagu soo laabto maaha balaayna waxa la waatiina duqa xarirka ana hadda leeyahay mataqaan baadu gabagabay arrintii mataqaan
isma lahayn sababtoo ah wadankii da-ana kumaanaa soo marin dhalinyarnimana qurbo kusoo galnay marka qurbahan waxa uu badnaa isticmaalkii iyo wixii dowladda Ethiopia ay naftiisa hadda uu dhibku soo maray inkastoo experience loo baahay in laga sheekeeyo sababtoo ah nin reerka dadkeena nin aynan ama guri aynan saameynin halgankii iyo dhibaatooyinkii meesha laga soo maray ma jiro marka la yaab malaha ragga hadduu ninba meel taabto oo cabdilxakiim oo taabanay maaragtay taraagedii iyo dhibaatooyinkii ka haysta hargeysa dadkeena laakiin waxay la tahay hadda waxa muhiimku waxa weeye in la garto maalinka maanta fursado badan baynu soo qasaa dhabanka ru ilaahay waxaa leedahay fursaddu dadka qaar waxay dhahaan way soo laalaabataa qaarna waxay dhahaan ma soo laabato anigu waxaan aaminsanahay ma soo laabato midda ah haddii maanta waxaa jira aynan la qabsanin oo aynan ka faa'iidaysanin run ahaantii fursad baana soo mari doonto inoo noqon mayso fursadda basay kusoo barto waa aragtahay sababtoo wareegga waqtiga ugu dheeryahay marka waxaan dhihi lahaa anigu laba qodob oo yar baan ka hadlayaa mid waxaa weeye anigoo aaminsan run ahaantii dowladda cabdi maxamed cumar raggii ka horreeyey ilaa kii koo iyo toddobaad meelaha anigaa filayaa maamulka gobolka soo maray marka isagu laakiin inuu ka duwan yahay oo weji cusub oo sida la dhihi karo kacaan oo kale ah amaba kacaanba ah inuu maaragtay dowladdiisu u shaqaynayso ayaan maaragtay anu aaminsanahay wixii hadda uu inagula hadlayay iyo meelihii badnaa oo taabtay beeraha iyo tacliinta iyo maaragtay nabadgelyada meeluhu aada ugu adkeeyo carabka inay ka dhab tahayna waxaad ka garan kartaa siduu maartaqaanaa xamaaska lahayd ugu hadlaad garan kartaa ninkuna haddaan wax ka dhabahay runtii kuma adkaysto hadduu suubiyo 6 bilood waxaa laga yaabaa inuu maaragtay dib uga istaago marka qodob waa kaas waxaa kacaankaa jira ee kamida kacaanka weyn ee Ethiopia ka socda inay dadkeenu ka faa'iidaystaan waa loo baahan yahay kolba adduunku waxaa jira la socdo waa loo baahan yahay mataqaanaa halgan baa jira oo xabad baa loo wadayaa kala xabadaan dhammaan oo mataqaanaa niman iska jooga Australia iyo London iyo meel lamid iyo Edmonton oo kale inay dad masaakiin ku lugooyaan oo abiya abaan haysan hataa raalli laga noqdo maaha taas muddo badan soo daashatay midda kale aan rabo inaan ka hadlo waxaa weeye oo wax yar la taabtay waxaad garan kartaa matalan nabadgelyadoo kale waxaad madaxweynuhu taabtaan moodayay shirki maandhoota ka dhacay ama dabaaldegii ka dhacay magaalada Jigjiga ee Ethiopia oo dhan iyo geeska Afrika iyo adduunka oo dhan isugu yimid runtii ma ayna ahayn hawl fudud ma ahayn dadku niba siduu rabo u arki karaa laakiin waxaa weeye in mataqaanaa ilaa iyo waxaa weeye adigu maamulada Ethiopia ka jiro kuwa yaryar iyo kuwa weyn dad dadka maxay ahaydayaan hidaha iyo dhaqanka dadku ciyaarihii raggi dadki mataqaanaa ganacsatadii siyaasiyiin federaalka dowladda Soomaaliya iyo gobolladeedii kulligood way kasoo wada qayb galeen hawshaasoo dhan si mataqaanaa habsami oo aada u wanaagsanay maaragtay gobolka u fuliyeen marka waxaa la dhihi karaa hawshaasu ay ku guulaysatay dagaalku inay tahay hawl run ahaantii u baahan aada muddo geeska Afrika muhiimka especially Soomaalida iyo Ethiopia dhexdeeda in dagaalku hadda uu hawl badan oo isku xirid oo kale ay meesha ka soo baxday sababtoo ah khaatimo oo la dhihi kara hadda gobollada cusub bay kamid tahay Jubbaland Somaliland Puntland iyo dowladda federaalka way kasoo wada qayb galeen kii iyo dowlado kale oo dariska loo soo qabay Ethiopia oo loo kasoo qayb gashay marka hawshaana si habsami ah oo mataqaanaa xagga logisticada iyo xaggii ammaankaba way ku horgashay marka waa hawl bogaadin iyo u baahan mataqaanaa in dagaalka lagu soo jeediyo nabadgelyo marka horumarka dadkeenu gaaray iyo meesha aanu marinayna waan ognahay marka innagana waxaa weye sidii raggii hore ee hadalka iga horreeyay u sheegeen waxay la tahay oo anugu ku talin lahaa xataa hadalka san waa sadaqa hadalka san oo laga sheegayo iska daa xabad iyo lugooyi iyo hagardaamo kale ninkii inaynu mataqaana wax alla waxaynu ka geysanin oo ugu yaryahay warka hadalka wanaagsan ee ah in ruuxaada rataan oo maaragtay wax khaldan iyo waxaa la imanaya in laga hor istaago ayay ila tahay marka aada iyo aad baan mataqaanaa ka soo qayb gashaan arrintaan idinku mahadinaynaa raggii soo qabanqaabiyey gabdhihii soo qabanqaabiyey aad baan ugu mahadinaynaa marka waxaan leeyahay walaalayaal barasho wanaagsan kulligiin runtii dad badan ayna aysan haddaynu hadda si aragno waynu iskala doonaa waad mahadsantihiin marka intaa iyo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo dhammaantiinba waan wada salaamay waana ku mahadsantihiin si aad uga soo qayb gasheen in muddo aan waan ku hawlanin hawlahan
soomaalida mar dhow baan tegey rag badan baa ila socday oo qurbajoog badan baan ku tagnay ilaa ka kooban 34 qof shacabkaas ayaan dhammaan say noo soo dhaweeyeen ayaan salaan guud ayaan halka uga dirayaa kalgacal tum sharaf leh iyagaan u gudbinayaa marka labaadna waxaan u gudbinayaa dowlad deegaanka maamulka ragga haya oona ugu horeeya madaxweynaheena sharafta leh mudane cabdi maxamuud cumar iyo la kabinetkiisoo dhan dhammaan waa wada salaamayaa haddii aan shaksi ahaan ama khaas ahaan ama meel ahaan aan salaamo dadka degan maxay ahayd deegaanka shabeelle degmo ahaan beer caanood ayaan si aadana u salaamayaa waxaana ku xijiyinayaa meelaana ka soo jeeday oo ah gobolka Shabeelle waliba degmo ahaan degmada Ereed ayaan ku dhashay xaggaasana ka soo jeedaa halkaana degmo ahaan iyo dhalash ahaan waan u salaamaya dhammaantiina waan wada salaamay si kooban mawlid ugu soo dhaweynaa nabadgelyo khadar baa isaguna waxaan waa inuu 2 daqiiqo ka badan doonay bal khadar noo dhiibo anuu hadal badan horta ima hayo qaybta dagaalkaad ii xisaabteen oo dagaal baan ku maqlaa caawo dhan intaasood meesha aad macnaha isku timaadeen horta dhammaantiin waa idin wasalaamaya jaliyadda reer alberta reer saskatchewan dadka magaranaysa kasoo qayb galay jaliyadda aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa aad baan dhammaantiin idin salaamayaa rag iyo dumarba marka labaad halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka u dhashay dowlad deeganeedka soomaalida Ethiopia dhammaantood waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynayaashu dhageystaan iyo magaranaysa dowladdiisa hoggaanka wanaagsan ee horumarka keentay waxaa weeye nin baan maalin dhaweyta anuu YouTube ka daawanaya waxaan arkay isagoo leh sabab ay California ka keeneen yay leeyihiin waddanku ka baxay adduunka nimanka diidan sababkii laga magaranaysa laga soo gooyay qalaafi iyo goday nimanka dhahaya California laga keenay ilmaha reer wax kale inoo ogolaan marka horta waa dhibaato ruuxu waxa waddankiisa ka soo baxay marka uu California geeyo ورب مركا يدا ودتك إنه واحد يجي إنه أصحابه إنه دتك معناها ودتك ربعي دتك بيقول إنه تسيا مركا فرم مركا هلا تاجروا إن آد معناها يعني دين والسلامية أنت سوف كان يعني وقف ضياع كم قبل سنة مركا شغلة دي بالقلية شركة وحين سوق أن جنانة كيسي يجمع دقيقة أنا لبضك وحاسين يا عبد الرزاق وقدر فدي أو فورت مقبوري إنه يمد وحان رواي إنه بالحلدق ويسوون أدوان كي قبيلة تاريخية إنه تري لامبد أبواك وحوس سمية كوح فناء ليلة هذا نيو ستارز كوح ذا وحوي اللي هو كوح كل يانوته وبردون أنت بدن نانتظر وحان ملا نانتظر إنه وحكا لكودر دوره ama ha noqoto heeso ama inayba koox gabayda kulligeed noqon doonto warmayno laakiin koox new stars la yidhaahdo oo dowlad deegaanka matasha ayuu ku dhawaqa waxaan leenahay kooxda waanu soo dhaweynaynaa wixii qalab music ah ee u baahdaan waa ka caawin doonaa waxaanu leenahay hawl wanaagsan ayaad abwaan qabatay Seattle DDS wakiilkeedii baa maanta inala jooga maxamed cigaal ما هو بينه هذا ما يشوف فنيا يكله هدي محمد فنيا وحن شغله إنه تقدر كده هو سياتل واشنطن أو ستيت كا وبحياة يا ليلي مركز هذا أيوه محمد هتسيا كسوق يبقى ونقله سوق يبقى وحن مركز كسر دويلة يا وكيل كا أما قدوميها جودة كندا خضر شر أحمد ولي بوشالي بل إنه قدر هذا كسر شيء ماشي وكيلك كدب نوعا كحيغا أضيقي ألبرتية ساسكاتشوان 10 واشيخ 10 وان علم بدني ووح بدن أوك ميلا فر بدن صوم علي مركا قدوميها كدب وحان كوري تشدونا بل 10 إنو سنة لبا دقيقو وسوچي كدبنا هدي دانتا عن عدسنا روان دانتين إن هدي كنا شركوان قبل يسدونا بسم الله الرحمن الرحيم
runtii ilaahay baa mahadle oo maanta inoo sahlay inaan jaaniskan isugu nimaadno waxaa ammaan iyo bogaadin mudan dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirkan iyo dadkii soo qabanqaabiyey maaragtay hawsha soo qabanqaabiyey waxaan rabaa inaan laba qodob un aan ka hadlo runtii dalaamo darbeed moodaa inuu arrinaan rabay inaan ka hadlo labada qodob aan ka hadlay waxaa weeye ujeedada shirka ujeedadiisa iyo bal inaan inagu aan isweydiino warba aynu xisaabtano oo dadka bini-aadamku u xisaabtamaa andhaawar xaggeynu maanta marayna xaggeynu shalay joognay maxaa inaga khaldan maxaa inoo qabsoomay maxaa inaga qabya haddii ay arrintaas timaado waxaa dhici karta in xal la helo laakiin qofkii aan xisaabtamin soomaalidu waxaa la yidhi qofkii waxaa la xisaab la-aan shaqeeya xisaab la-aan buu khasaaraa allah raxme awaandhowdan baa waa hore yidhi ninkii rodo la miisaamee kiila raajiciye raasamaal ku helaa ruux ka hooseeya xisaabtaa inuu dib u rogrogo sawra iguma marka hore warka aan kusoo noqdo arrin maaragtay shirka iyo ujeedada shirkan iyo ujeedadaas waxay ahayd inaan ku taageero dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo horumarka iyo maamulka suuban ee ka socda halku-dhagiisuna wuxuu ahaa nolol iyo nabadgelyo sababta ah qofku markuu nabadgelyo helo yuu nolol helaa taasaana sabab ah in maaragtay aan maanta qaadano go-aankan ah inaan ka shaqeyno nabadgelyo iyo nolol halku-dhageenuna usaa noqdo arrinta kale ee maaragtay inaan xisaabtana ah dhulkeenu dhibaatooyin badan buu soo maray dagaalo badan baynu soo maray dadkii horaa ka sheekay ma rabo inaan aada ugu dheeraado dagaal kasta oo aan soo galo kasoo bilow axmed guray sayid maxamed cabdilla xasan nasrullah w s l f olf dagaal kasta oo la soo galo isagoon la isdayn buu dhammaaday dagaalada aan hadda xusuusan karo oo kale 7-7kii baa ka mid a ani magaalada walwaal baan ku dhashay wareer baan kusoo koray dagaalkii 7-7 markuu dhacay waxaa dhacday magaalada wardheer sidii loo deganaa looga filayay in ilaa harar gacanta lagu hayo yaa habeenkii ciidamadii magaalada jooga soomaaliyeed ee dagaalka qayb qaatay habeennimadii baa taaro soo dhacay baabuurtoodii bay xidhxidheen waagu markuu baryay xeryahi ay ka tegeen miinay ku xidheen waagu markuu baryay bay waddada afka saareen maxaa marka dhacay dadkii magaalada joogay waxay arkeen ciidamadii soomaaliya oo baxay waxaan filayaa markaa waan yaraa laakiin kolley hadda waa iska taariikh oo dadkii joogay iyo maxaad usoo joogtay wey lugtii ka bilaabatay wardheer dhuusamareeb baa lagu gaadhay dowladdii minkiste waagaa waxaan laga filaynin bay samaysay oo maaragtay xasuuqii laga filaya badnaa ma dhicin marka dagaal kasta oo aynu gallo inuu ku dhammaado iyada oon laysdayin inuu dhammaado wax dambe oo loo dulqaadan kara ma aha runtii dadku wuu isbedelay waxbaa la bartay adduunka baa la ogaaday meeshay wax marayaan baa la ogaaday dagaalka hadda waddankeena ka socday ma ahayn dagaal maaragtay xuquuq doon ma ahayn dowladda etoobiya isbedelku markuu ka dhacay waxaan xusuustaa 1992gii dowladda etoobiya waxay tiri waa maamulkiina iyo xuquuqdiina waa ka wax kalaa la raadinayay wixii kale la raadinaya xaqiiq lagama sheegayni qofkuna marka waxa uu doonayo uuna xaqiiqda ka sheegin meel kale ku dhaca taasi runtii waxay sababi gaadhay inay dadkeenu xuquuq iyo xorriyadba seegaan oo dagaalkii jiray uu xuquuq iyo xorriyadba seego laakiin waxaa mahadlay shacabweynaha dowlad deegaanka soomaaliya iyo dowladda deegaanka soomaalida iyo madaxweynaha iyo maamulka mudane cabdi maxamed cumar oo dadaalkii ballaadhnaa ee ay galeen ay muujisay inaan dadka soomaalida etoobiya ayna ku dhicin meel cidla ah ee ay dib u soo maamudaan noloshoodii dhismahoodii ummaddana ay la sinmaan mugdigana ay ka baxaan taas waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan shacabweynaha dowlad deegaanka soomaalida iyo dowladda deegaanka soomaalida iyo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaaliya mudane cabdi maxamed cumar runtii kuma dheeraanayo waan soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay war aan xisaabtanno oo meesha aan marayno iyo meesha aan maanta aan soo dhaafnay een ka soo gudubnay
aan aragno dad badan baa kasoo sheekeeyay dhibaatooyinka waddanka ka jira anigu waddanka kusoo koray anigu nin weynaan waddanka keeno waxaan taagnaa caanaha baadiyaha marka laga keenayo qofku magaalada keenayo in la dhaho dhadhami horumar iska daa ragba waxay sheegeen inay dugsiyo dhexe iyo xayla salaase markiisii ay ahaayeen xilli annagu waxaan soo marray aan magac xitaa iskuul la aqooninba maantana cirifto cirif 63 degmo ee gobolka koobaya degmo walba high school baa ku yaal hal mar abay casharada wada qaataan oo maaragtay runtii technology casri ah oo adduunka maaragtay aan dad badan ayna filayn waxaan kusoo koobayaa annagu haddaan nahay dadka reer Canada waxaanu qaadanay nabadda waxayna sal u tahay nabaddu nolosha nabad baa naas la nugale nabad baa geel lagu dhaqdaa nabad baa guri lagu galaa nabad baa gabdho lagu dhaqdaa waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi